xikmadda iyo caqli badnaanta. Xikmaddu wax xidhiidh ah lama laha da'da. Waxaad la kulmi kartaa nin 60 jir ah oo bilaa xikmad ah oo ku marin habaabiya. waxaanad sidoo kale la kulmi kartaa qof aad kaaga da'yar oo xikmad iyo caqli badan oo ku caawiya. haddii aynaan ku darin caqli iyo xikmad, ficiladeennu waxay noqon lahaayeen qaar ku salaysan uun damiceenna. waxaynu raaci lahayn dareenadeenna inagoon eegayn natiijooyinka xun ee ka dhalanaya ama dhibaatooyinka aynu ku sababi karno nafaheenna iyo nafaha kaleba. hal erey oo xikmad ah oo aad ka heshay qof xikmad badan ayaa kaaga faa'iido badnaan kartaa khibrad kugu qaadata inaad ku hesho dhowr sano oo noloshaada ah. hal erey oo aan ka qaadanay qof bilaa xikmad ahina waxay inagu hogaamin kartaa inaynu qaadano go'aano aynu mar dambe nolosheenna qoomamayno. haddii ay jirto waxaynu dhab ahaan ugu baahannahay si aynu ugu noolaano nolol fiican oo farxad lihi, taasi waa xikmadda iyo caqli badnaanta. 6 tallaabo oo aad ku noqon karto qof xikmad iyo caqli badan. 1. weligaa go'aan dhaqso ha u qaadan. mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee xikmaddu waa inaanad si dhaqsaha go'aan u qaadan. tusaale ahaan, haddii aad 3 cisho gudahood ugu jawaab celinayso shirkad kaa codsatay inaad u shaqayso, waa inaad u jawaabtaa oo keliya maalinta 3aad, xataa haddii aad horeba u garanayso waxa aad doonayso. haddii aad rabto inaad fariin muhiim ah u dirto qof saamayn kara noloshaada, qor oo diyaari warqadda, balse hore ha u dirin. dhowr daqiiqo kadibna waxaad arki doontaa fikrado cusub oo maskaxdaada ku soo dhacaya, kuwaasi oo kaa caawin kara inaad fariin muhiim ah dirto. si aan qodobkan u soo koobno, waa inaanad ficil samayn ilaa intaad waqti ka haysato, xataa haddii aad si fiican u garanayso waxa aad rabto inaad samayso. 2. ficil ha samayn ilaa aad ogaanayso xogta kaa maqan. waxaan hubaa inaad hore u waajahday xaalad ah inaad mid ka mid ah saaxiibada u sheegtay dhibaato ku haysatay oo uu isla markiiba xal ku siiyey isagoon si buuxda u fahmin sida ay wax u jiraan. ka hor inta aanad wax talo ah siin qof ama aanad wax ficil ahba samayn, ugu horreyn isku day inaad sawir buuxa ka haysato oo aad si fiican u fahanto sida ay wax u jiraan. haddii uu qof wax xun kaaga sheego qof kale, markaaba qofkaa kale ha xukmin oo ha cambaarayn, balse isku day inaad xogta kaa maqan hesho adoo qofka kalena xidhiidh la samaynaya oo ogaanaya in waxa laguu sheegay ay wax ka jiraan. 3. fahan wax kasta sababaha ka dambeeya. qofka mar kasta dadka kale si cadhalo ugu qayliya waxaa laga yaabaa inay haysato dhibaato nolosha ah oo uu xallin kari leeyahay. qofka mar kasta ku xaasida waxaa suurtagal ah inuu dareemayo hoosayn iyo inaad wax kaga fiican tahay. qof hadduu ku necab yahayna macnaheedu waa in qofkaasi kaa baqanayo. si aad u noqoto qof xikmad iyo caqli badan, waa inaad heshaa aqoon kugu filan oo kuu saamaxaysa inaad ogaato sababaha ka dambeeya dabeecadaha iyo habdhaqanka qofka. inaad urursato aqoonta noocan ahi waxay sababaysaa inaad samayso ficil ka duwan ficilkaad samayn lahayd haddii aanad ogaateen. 4. akhri oo noloshaada ku dabaq. haddii aad wax badan akhrido adigoon waxaa ficil ahaan u samaynayn, waxaad noqon doontaa qof oon wax akhriska iska jecel. haddii aad ficil la samayso adigoon waxba akhrin oon wax badan ogeyna, waxaad noqon doontaa qof jaahil ah. haddii aad wax badan akhrido islamarkaana waxa aad akhriday aad naftaada ku dabaqdo oo aad isticmaasho, waxaad noqon doontaa qof caqli iyo xikmad badan, wax badanna og. xikmaddu waxay ka kooban tahay aqoon iyo khibrad nololeed, labadabana waa loo baahan yahay si aad u noqoto qof caqli badan. haddii aad rabto inaad noqoto qof caqli iyo xikmad badan, talada ugu fiican ee aan kuu hayaa waxay tahay akhri wax badan islamarkaana samee oo ku dabaq noloshaada wixii aad akhriday. 5. wax indhe ma aha inaad gasho god dheer oo dhulka hoostiisa ka qodan si aad u ogaato khatartiisa, sababtoo ah waxaad ku ogaan kartaa xogtaa mid la mid ah adigoo arka qof kale oo ku dhacaya godka. haddii khibradda aad noloshaada helaysaa kaa dhigayso qof caqli badan, inaad dadka kale khibradooda wax ka sii barataana waxay kaa dhigaysaa qof aad u sii caqli badan. 6. ha samayn dadka badankoodu waxay sameeyaan. dadka aad inta ugu badan la kulmi doontaa maaha dad caqli iyo xikmad badan. ficilada ay sameeyaanna waxay inta ugu badan ku salaysan yihiin dareenadooda iyo laablakac iyagoon xog buuxdahayn. haddii aad rabto inaad noqoto qof caqli iyo xikmad badan, waa inaad ogaataa in inta ugu badan ay tahay inaad samayso wax dadku aanay samayn. inaad dadka uun dhinac ka raacdaa weligeed kaa dhigi mayso qof caqli badan. wax ka baro channel maha goob aad ugu iman doonto talooyin bilaataya ah iyo taba aan waxtar lahayn, balse waa degal aad ka heli doonto farsamooyin waxtar leh oo si weyn u anfici doona noloshaada. subscribe saar si aad si joogta ah ula socoto muuqaalada kala duwan ee aan soo gudbiyo. sidoo kale la wadaag oo gaarsii asxaabtaada si leedahay u anfici doonaa channelkani. mahadsanid.